هذا قصدر مركي معنا يعني حبت يا كل ما أيه على شباب هاي سلو أيه كعيري ما ممكن تجمع في شلة يعني ما دي مقالدان haye أنا حبت كل ما ذي حبت ولا إذا فارق الرحلة بعد كل فلان كأود إلهي ومش هذا يسوع عندي اللي يقصر ولا يبغى وتبي أنا هو ميت كي يوتا ما كي يستة أيه كسي بايا hadda xaruntii degmada idinka maa jooga oo haysta حرامتي تجمع أنا جونا أو مقالد تجمع جونا كان تقوينا من وكل إنه هذا أدي إنه على الشباب أدي ما تنو كدفاع دونا تبكي أسكوسو ديو أنتي مصور أنا أسكوسو دينو وأسكارين دونا إن شاء الله كاو taliyaha ciidanka howlgelinta ciidamada daraawiishta degmada Qansax Dheere taliya Nuurow waxaa lagu ogaa in maamulka degmada Qansax Dheere aad waqti dheer la shaqeynaysay ilaa haddana aad ka mid ahayd saraakiishii ciidamada halkaasi ka howlgalayay waxaa la tilmaamay in maamulka koonfur galbeed aad ka hor imaaday sidoo kalena aad la wareegteen guud ahaan degmada Qansax Dheere lana tilmaamayo inaad tihiin isbedel doon bal arrintaa ka waran oo aad baraha bulshada u qabsatay يا هو غصاد يا جوجا ولين وايد جوجا ميل وغصو شقي مدو عليه شل يفوزنا يا غصاد يا كوش شقينا يعني عيلو وعنا مدورات يوم عزيز شيخ محمود يا نقطة بيسين واحد حقوقه أنكاسو إذا هاتو راسا هاتو مشارع أنت هايلها في قدام بيس marka maxaa keenay bal inaad maamulkii aad ka hor imaadaan sidoo kalena dee aad la wareegtaan guud ahaan degmada Qansax Dheere waxaa keenay de kule waa dareemi kartaa waxaa sidaba waqti markii dhamaado oo waqti markii dhamaado inuu geed ayada siyaasadda markii meel tan baa u socotaa haye sida markaa in laga faa'iideysto caadi waa sunu kale dibash bal maamulka koonfur galbeed xuquuqaad oo idinkaga maqan darteeda maad kaga hor imaadeen mise muduxileedkooda oo dhamaaday darteeda ayaad kaga hor imaadeen maamulka koonfur galbeed kulliga mujaaleedkii noo dhamaaday muddo oo adiga waa og tahay 7 sano joogaa 7 sano Qansax Dheere xagee kaga maqnaayeen maamulka xagee jireen oo maamulka isku waa mid maamulka degmada lafiis mudadiisa asigoo dhamaatay ayaa iska jooga meeshan haye marka de kulliga sidaas awdeed maamulka degmada joogana waxaa waaye qofkii aragtidiisa aragti ka duwan كان ولا حرا ولا درا ولا عيرنا مقالنا ولا داتنا ولا مسافرين hadda xaruntii degmada idinka maa jooga oo haysta حرامتي دغمدا أنا جوجنا أو مقالنا دغمدا جوجنا كان تقوينا من وكل إنه هذا أدي إنه على الشباب أدي ما تنو كدفاع دونا تبكي أسكوسو ديو أنتي مصور أنا أسكوسو دينو وأسكارين دونا إن شاء الله maamulkii degmada halkay aadeen iyaga maamulka degmada weli waa joogaan Amazon ku jira hadaylibu dad walaalahana awaay in ay fikirkooda iyo waxaas intii bedelaan noo imaadaan hadana insha Allah way joogaan waxa ay kulay hadda ka hor ah oo ay weerar iyo waxa soo qaadeen ma lahan anagana weli hadda weerar kuma qaadeen way joogaan dad walaalahana in meedeerna ay waay marka kulay waa sarki doona wada fadhiisin doona waa saalli doona insha Allah marka xaruntii degmada kaliya ka baxeen oo Amisom ay u galeen Amisom marka amaankooda sugay miya si fiican saasa lii sheegay hadda ay maraan suuq ma aadin tarada ciidanka jamaahirta ayaa jooga meel lagu soo kulleeda hadii waa bariin magaaladana aadna rabnaa waxa dhawaateen ma jiro in shacabka dhexdiisa lagu dagaalamo ma rabno qofka faadeeyo joogo oo shacab ah in la dhaqa oo la dhawaaqayo la rafaadin uma baahanin weerarna ku midin kan oo dhawaata anaga naga imaaday oo dhanka anaga ka imaaday qof shacab oo qof muwaadin Soomaaliya reer Qansax Dheere wax ku gaaraan ma jeclin uma soo raadiyeen kawaran bal hadda arintan waxaad xaqiijiseen in guud ahaan degmadii aad la wareegteen maamulkii degmadana oo degmadii xaruntii uu ka shaqeynay uu ka cararay oo uu Amisom xeradeedii joogo bal arintani gacan ka hadal isku bedeshay kawaran gacan ka hadal hadii isku bedeshay diyaar baan habad sidoo qof wiil ugu dhashay ma jiro habad waa ku dhinta wiil kuma dhalay wiil waa loo yahay hada Qansax Dheere markii maanay aniga habad ayaa ku imaaday ayagoo al shabaab haysto ayaa ka ayiriyay maamulka degmada sidii shalay ayaa imaaday magaaladan haye aniga habad ku imaaday habad waa iga saari karaa hadii baad kulay dhanka awood ilaahay oo meesha aadayso hadii iga saaro oo liibo wadbadi aniga midkayga iyo dhaawacayga
ayaa kasii baxaya ciidamada adaa hogaaminaya yaa kale saraakiisha ku jira oo qansax dheere jooga kulley taliya ururka waa joogaa saraakiishii taliya urumiyii waa joogaan waa isi joognaa wax dhibaato ma jiro magaaladana weerar kumini dhibaatana ma jirto al-shabaabka waa ka difaacayna ayaga qofkii weerar nagu soo oo nagu soo aadan waa iska difaaci doonaa insha allah taliyihii saldhigga ma ku jiraa saraakiisha goosatay waa isi joognaa taliya saldhigga taliya ururka dhammaan waa isi joognaa haye maamulka koonfur galbeed muduxileedkooda sidaa sheegtay wuu dhammaaday oo sharci daray ku joogaana dhahday manila soo xiriireen idinka oo arrintan ma idinkala hadleen oo waxa aad muujiseen oo ah in aad maamulkii ka soo horjeesateen sidoo kalena aad muujiseen in marnaba aysan maamulka degmada ku shaqayn doonin sidoo kalena aysan idin xukumi doonin oo godood aad muujiseen waa u sheegnay horeyna waa u sheegnay maantana waana soo wacay waan u sheegnay sababtoo ah haddee walaalaha hadda diyaar u nahay ayaana dhaheen haddee walaalaha hadda diyaar u yihiin 5 sana xaggee jireen marka idinka wada hadal diyaar muu tihiin oo aad la yeelanaysaan maamul koonfur galbeed war walaalaha kaanigiyo waxaa waaye isbedel waaye in isbedel la helo oo maamulka degmadan oo waqtigiis dhamaaday 7 sano awood meeshaan ku joogo maamulka degmada oo boolbeynani waxay rabo ka samaysanahay in meeshaan laga qaado oo maamul safarta la keeno ay degmada haye bal haddii sidaas la sameeyo maamulka koonfur galbeed ma la shaqayn doontaan maamulka koonfur galbeed haddiiba dowladda sidii waqti siiso oo dowladda soomaaliya ma la shaqaynayo waliba dowladda u baahanay dowlad haddiiba la joogto amazon meesha joogto nabadgelyani waa haddii nala shaqayso amazon waa la shaqaynayna amazon bartaada hadana soo weerartata waa iska helinaynaa isma dhiibayna weliga aniga okay si guud koonfur galbeed waxaa ka socda kacdoon horey maamulka degmada buurhakaba iyo sidoo kale saraakiisha ciidamadeeda waxay sheegeen in maamulka koonfur galbeed ay ka soo horjeedaan sidoo kalena ay yihiin dad isbedel doon ah waqti dheerna la dulminayo idinka kuwaas miyaad la mid tihiin maamulka buurhakaba iyo ciidamada daraawiishta degmada ka saareer waa hal level waay waxaan rabnaa berri way ka dambeeya in oo koorso dhibooda meeshaan ka furnaa u baahannahay haye kolley askarta dhibookaas iyo waxaas la furayana xuquuqdooda iyo hubkooda kolley dowladda ayaa ka codsanayna in la soo gaarsiin marka ugu dambeyn bal baydhabo dhibooda lagu furaayo askara lagu tababaraya 15 sano hal koorso ka saareera midooyinka koonfur galbeed hal koorso lama siinin weligeeda askari loo tababaray malahan madaxweynihii hore oo shariif xasan sheekh aadan askartii tababaray ayaa degmadan hadda difaacay marka arrintan maxay tahay marka hadda kolley ba arrin oo ka dambeeya waaye maamulka koonfur galbeed ka dambeeya waaye dee sabab in ciidamo keliya koonfur galbeed oo degmada baydhabo jooga in tababar loo furo kuwii qansax dheerna aan loo furin idinka sidee u fahanteen waxaa u fahmnay kolley qansax dheer xariina degan haye baydhabo xariina degan waxa koorsada loo furayna waa xariinka hataa laf gaar ah oo madaxweynaha midii ka dhashay waaye kolley ba waxaan garan karna oo koonfur galbeed lagu hukumayo ma ahan maamulka koonfur galbeed sigenaatay xabad wiil waa ku dhintaa daraad waa weyd baydhabo wixii ka dhacay marka waxaa ugu baaqi lahaa in oo soomaalida sideeda laba naagood ayaa hadda kahor waxaa dhacday wiil ku doodtay ana dhalay isagoo ilmo naagtii ilmihii dhalin waxaa tiri waa liii kala goynaa ilmahana waana loo kala jeexa haye marka maamulka koonfur galbeed waxa u sheegay in isaga iska ilaaliyo in berri waxaan rabaa in halka dib uga soo laabto haddii berri waayona berri dambe in dib usoo laabto oo soomaali hukuma ayaa u baahan yahay xabadda sideeda in ka hor imaado oo xabad wiil oo ku dhintaa meel kuma dhalanayo marka maamulka waxaad ku eedeynaysaa maamul qabiil inuu yahay miya maamulka waxaad ku eedeynaysaa maamul qabiil inuu yahay maamulka de waa wada ogyahay waa la arkayaa soomaalida dhan waa arkaysa aniga waa ujeedaa isha farta iga gelin ma maqay haye waa sidaas dadka dhan waa ujeedaan hadde 17 koorso ayaa laga soo saariyay baydhabo heer waxaa dhacday wiil oo dhintay askari ah oo difaac ku dhintay al-shabaab baasuku ku gaaraaday oo baasuku lagu dhuftay oo askar duugaysay xawaashi korkeeda in looga tagay oo qoryaha laga qaatay ayaa dhacday hadda kahor oo askariga ayuu ahaa marka kolley qabiilooyinka oo koonfur galbeed oo degaan ka mid ahaa war walaalkiina maxaad u duugaysaan ayaa qoriga looga qaatay waan ognahay waa joogaan ayaga lafooda ilmihii qoriga laga qaatay ilaa weli qori la-aan waay